السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتنا أصحابتي waxaad leeyahay marka ugu horeyso waxaad iga barateen inaan idin soo gudbiyo sheekooyinka jacaylka ah qisooyinka dhabta ah ee dhacay haddaba haddii aad nagu cusub tahay baliis ha ilaabin in aad noo subscribe gambaleelkana aad furato si aad ula socoto video walba noo share gareyso noo like gareyso comment aad ka soo bixiso fikradaadana aad nagu soo wadaagtid maqalka kani hoostiisa haatan ku soo dhawaada sheekadii qisadani waa qiso jacayl oo ay ku dhacday gabar Soomaaliyeed inkastoo magaceedu ay noogu sheegtay nadar codsaytayna ama ay noogu soo dirtay qoraalkani Gmail ahaan haddaba iyadoo ka hadlaysa waxay bilowday sida tan waa idinka iyo sheekada aan idinkaga kala dhaxbaxay waxay ku bilowday assalaamu calaykum kadib waxaan ahay gabar Soomaaliyeed magacayga nadar ayaa la dhahaa waxaan ku dhashtay wadanka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho sanadku markuu ahaa 1986 waxaan waxbarashadayda ku soo qaatay dugsiga hoyga xamar waxaan isbaranay wiil lagu magacaabo Cabdishakuur waxaana u qaaday jacayl aad u daran ama jacayl baaxad weyn asna sidoo kale habeenada kamid ah ayaan waxaan ku riyooday Cabdishakuur oo meel aad u qurux badan joogo canug yarna haysta anna aan leeyahay keen aan qabtee riya ahaanta aniga ma dhalin cunugtan subaxdii ayaan u sheegay riyadii Cabdishakuur aad ayuu igu qoslay waxaana sidaas ahaanaba Cabdishakuur ayaan habeenada kamid ah wacay moobilkiisa waana markii iigu horeysay oon waqtigaasi oo kale waco waxa iga qabtay naag waxaana ku iri iigu dhiib qofka taleefanka lahaa wixii ii weydiisay waxaan ka rabo iyo qofka aan ahay waxaan ku iri waxaan ahay walaashiis wax dhib ahna ma jiraan ee iigu dhiib waxaan ogaaday inay wax jiraan waan ku damiyay talka markaan ku damiyay talkii ayay iga soo daba gashay oo dib ayay ii soo wacday ayay tiri iyadoo ii geysatay aflagaado waxaan ku iri adigaba ama adiga nasiib leh oo Cabdishakuur agtaada jiifaa inaad labada daamood ama labada dhaban ka shumiso iska seexo niyadana khayr u sheegayaan ku iri intii aan wada soconay Cabdishakuur ima uusan sheegin inuu xaas leeyahay hataa waan weydiiyay wuxuu igu yiri malay xaas almuhiim Cabdishakuur ima soo wicin maalinta iyo maalinta xigtayba waan ka ahaan waayay maalintii saddexaad waan wacay gacaliyaheeyii iqayaanay waxa dhacday inaan aniga raali geliyo sababtoo ah aad ayaan u jeclaa Cabdishakuur wuxuu ii sheegay maalintaasi inuu xaas leeyahay iyo hal cunug oona sheegay cunugta yar ay tahay midii aan ku riyooday dhalashadeedii markaan arkay xaaladda meesha ay marayso oo jacaylka igu jajaban yahay qalbigaygana uu u socdo dhanka Cabdishakuur wadnahaygii ayaa ka ahaan waayay waxaan noqday qof maqana jooga ah waan ka ahaan waayay jacaylkaygii ama jacaylkii uu isiiyay waxayna danta igu kaliftay inaan qalbigayga dhiso jacaylkii uu isiiyayna aan sii wato waxaan meeshii ka wadanay jacaylkii waxaan dhex galnay marxalad aad u macaan badan waxaan u heshiinay ama ku heshiinay guur habeenada kamid ah ayaa waxaa ii yimid Cabdishakuur iyo laba wiil oo saaxiibadiisa ah aad ayaan u soo dhaweeyay waxaan fadhiisiyay qolkii martida waxa igu go'ay adeegii martida inkastoo suuqa inaga fogaa waxaan doonay adeegii anigoo aanan u sheegin Cabdishakuur inaan banaanka aaday markii aan ku soo laabtay guriga ayaa waxaan arkay
martidii oo ka soo baxayso ilinkii guriga. aad ayaan u naxay, waxaan ku idhi maxaa dhacay? waxayna dhaheen waxba walaal, waxaan soo abaaray qolkii Cabdishakuur, ama waxaan tirita u soo aaday qolkii Cabdishakuur ku jiray. waxaan arkay Cabdishakuur oo asna taagan qolkii iridiisa. waxaan ku idhi marka hore fadhiiso. waxaan arkay inuu caraysan yahay. waxaan u sheegay halkaan aaday. waxaan ka codsaday inuu martida soo celiyo, iga raalli ahaado haddii uu qalad iga fahmay. Cabdishakuur wuxuu hadal igu yidhi waan baxaa asagoo caraysan. aad ayaan u baryaayay. waxaan u sheegay jacaylka aan u qabo iyo inaan dad kale u bixin ama dana kale aanan lahayn ilaa tan martida maahane. almuhiim Cabdishakuur meeshii ayuu iiga tegey anigoo ilmeynayo. meeshii ayaan ku bir daboolmay. muddo kadib ayaan soo baraarugay. waxaan wacay Cabdishakuur. nasiib daro igama qaban telkii. subaxii ayaan wacay, waxaana ila soo darsay murugo aad u weyn iyo anigoo aanan waxba samayn inuu meel cidla ah igaga dhaqaaqo gacaliyahaygii, ouna og yahay jacaylka aan u qabo micno lahayn igaga tago. almuhiim subaxdii ayaan wacay, waxaana ka codsaday inuu ii sheego wixii sababay kala tagii xalay ee murugta lahaa. wuxuu igu yidhi anaa ku soo wacayo. kale ayaan wacay anigoo wax natiijo ahna ka helin. waxaa dhacday inuusan isoo wicin. haatan wacane wuxuu ileeyahay anaa ku soo wacayo oo habeen ah. waxaan galay xaalad aad u xun. waxaan aruuriyey ama ku aruuray sariirta muddo dheer dhowr bilood kadib ayaa maalin maalmaha ka mid ah ayuu isoo wacay Cabdishakuur. salaan kadib wuxuu ii sheegay inuu xaaskii furay. aad ayaan ugu naxay arrintaasi. canaan kadib Cabdishakuur horey wuu u maqlay inaan aad u xanuunsaday una qalbigayga dhib u geystay. asagoo tii iiga raali gelinaya ayaan go'aan ku gaaray inaan halkii ka wadno jacaylkii. aniga aad ayaan u jeclaa, asigana waa qowda maqashii waxna ha u qaban. mararka qaar wuxuu ileeyahay hadallo niyad jab ah iyo adiga waad gaaban tahay. haddii aan kaa hadlo xaggayga ma gaabni, dhab ahaantii waxaan ahay dhexdhexaad, laakiin isaga dhidhirkiisa ayaa saa'id ah. anna waxay igu noqotay cuqdad. waxaan arkaa mararka qaar dad igu dhahayo adaa iga dheere isoo qabo. waxaas waan la yaabaa. waxaan isu qaatay inaan adduunka ugu gaabanahay. xataa haddaan arko dad aan ka dheerahay ma aaminayo. almuhiim waxaan galay nololtii ugu xumeed. waxaa arrintii maqlay hooyaday oo joogta waddanka Sacuudiga. waxayna ii dalabtay fiiso. waxaan imid waddanka Sacuudiga. markaan imid waddankan xaaladaydii way ka dartay. markaan maalmo joogay ayaan wacay Cabdishakuur anigoo ka oynaya ama anigoo ka go'ay wax kasta oo qof ku noolaan karo, anigoo hadalkiisa ka dhiganayo daabo. alla daabo. haye maxaa dhacay? waxaan ka codsaday inuu qalbigayga ka tiro Cabdishakuur. waxaan badiyey salaatuleylka iyo ducooyinka, wuuna iga aqbalay Ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan go'aan ku gaaray inaan jacayl iska daayo, anigoo og inuu ragga isku mid ahayn, balse aan go'aan ka gaaray ayay leedahay gabadhaasi. sheekadaani aad iyo aad ay nala soo wadaagtay. haddii ay dhammaystiran tahay waxaan leenahay aad iyo aad ay u mahadsantahay. haddii ay dhammaystirneenna inala soo wadaag intii wixii ka dambeeyey iyo sheekada meesha ay ku dhammaatay. kuleetii haddii adiga go'aan ka gaartay uma malaynayo inuu asiga kaa haray, balse sheekadaani waxaan kaga fadhinaa qaybteedii labaad. bulshadana la soo wadaag ileen la iskuma gooye sheekada markay ay macaan tahay.
dhammaantiin asxaabta aad iyo aad ay u mahadsantihiin daawashadiina iyo dhegaysigiinaba haddii aad ka hesheen leeg noo saara kubilatigiina ka soo bixiya wix fikradiina aad iyo aad ay u mahadsantihiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu